waa mar kale iyo barnaamijkeenii qur-aanka iyo sayniska. waxaa maanta inoo yaala barnaamijkeena oo qayb ka ah runtii wax aad iyo aad u xiiso badan. waxaa inoo dambeeyey oo aan markii u dambeysay kaga hadlay boodkastigeenii afraad cilmiga maanta aadamuhu gaadhay, technologyga u sababay, aqoontiisa, waxyaabaha maadiyaadka uu leeyahay ay gaadhsiisay inay qayb ka mid ahayd aadamaha iyo meesha uu wax ka dareemo in ay ahayd maxaanku idhahdaa jirkiisa amaba aan idhahdo dubkiisa, maqaarkiisa sare inuu ka dareemo ayaan soo sheegnay, iyadoo taa lafteeda aan sheegnay in qur-aanku 1400 sano iyo ka badan ka hor uu arrintaa lafteeda ka hadlay. weliba uu sheegay in uu yahay maaragtay halka uu qofku wax ka dareemayo isla sida uu markaasi u dhigay cilmigaasi maadigii uu dhigay. waxaa inoo yaala maanta tani arrin iyada lafteedu aan sahlanayn. waxay culummadii waxyaabaha maadiyaadka aqoonta u lahaa ay yidhaahdeen oo ay ogaadeen, ay soo saareen, waxay ogaadeen in dabayshu ay samayso bacrimin. asal ahaan waxaan inta badan aragnaa markuu roob soo daadanayo in saxan iyo dabayl yar oo aad u udgoon ay hor socoto, oon inta badan aragnaa geedda oo shanqarhaysa oo dabaysha socoto la shanqarhaysa, dabayl roobkii ka horeysa. waxyaabo badan baan aragnaa marka uu roobku soo daadanayo, iyadoo markaasi aynaan si cilmiyeysanba aynaan u baadhin. waa marka qofka caadigiihi uu u fiirsado waxa dhacaya markuu roobku imaanayo. haddaba markay cilmi baadhis ku sameeyeen ay eegeen, waxay ogaadeen in dabayluhu sideedaba ay shaqada ay qabtaani ay tahay inay bacrimin sameeyaan. waa cajiib. cilmi baadhistani waxay noqotay markii ogaalkan la gaadhay ee la ogaaday wax uun dunida wax lagu soo beeriyey baa loo arkay, oo aqoontii dunida taallay oo wax lagu soo daray ayaa loo arkay. adigu asal ahaan markaan ku idhahdo adika muslin ahaan, markaan reer galbeedka iyo aqoon-yahankooda ka imaado, kitaabkaaga qur-aanka ayaad haysato ayaa waxa uu tibaaxayaa uuna sheegayaa in dabaylaha ilaahay soo dirayay shaqaday qabtaani inay ka mid tahay in ay sameeyaan waxa la yidhaahdo bacriminta. runtii waa arrin aad iyo aad xiisaheeda u wadata wey. reer galbeedka, aqoon-yahanka reer galbeed markuu arrinta tani isagu uu faaqidayo, uu ka hadlayo, analyse ku samaynayo, tibaaxayo, waxa uu isagu background aqooneed iyo sources aqooneed oo kale oo uu haystaay ma jiro oo ka baxsan technologyga uu markaasi isticmaalayo, iyo sidoo kale fikirkiisa iyo tijaabadiisa iyo wax ka baxsan oo kale ma jiraan. balse adigoon rafaadin, maadaama oo kii sameeyey adduunkan uu qur-aanka soo dejiyey, qofkii sameeyey, ilaahii sameeyey, maadaama uu soo dejiyey. waa tahay shirkaddu marka ay soo samayso telefoon soo samayso, telefoonka iyadaa ugu aqoon badan. waxaanan kaga hadlay podcastyadeydii hore oo nidhi wax lala yaabo oo weyn maaha, adigoon baa lagaa rabaa inaad fakirto, kitaabkaaga wax badan ka raadiso, waa kitaab cilmiyada aqoonta ku jirta kasoo saarato. laakiin ilaahi waxa uu leeyahay alaa yaclamu man khalaqa, cidda abuurtay oo ilaahay miyaynan aqoon u lahayn aadamahaas iyo waxyaabaha kale, makhluuqaadka kale ilaahay sameeyey iyo habka ay u shaqaynayaan. marka inuu ilaahay sheegay oo ina yidhaahday dabayshu waxay samaynaysaa bacrimin wax lala yaabo ma ahan, laakiin waxa wax lala yaabo aqoon yarida qofka muslimka ah ee kitaabkiisu macluumaadka nooca bixinaya, inuu kitaabkiisa source of information u arki waayo, meesha wax ka qaadan u arki waayo, laakiin in sourceska informationka uu kasoo qaadanaya macluumaadka uu doonayay ay noqoto nin reer galbeed iyo aqoon-yahan reer galbeed inay noqoto, oo asaga aad kasoo minguuriso tiraahdo aqoon-yahan hebel oo ah wadankaas reer galbeed kasoo jeeda ayaa macluumaadka noocaas ah amaba aqoonta noocaas ogaaday, dunidana kusoo biiriyay. taasaa wax lala yaaba. yaan hadalka ugu dheerayne, aayadda qur-aankan kuu sheegaa oo ilaahay arrintaas ku sheegay. ilaahay waxa uu leeyahay wa arsalna riyaaxa, waxaan diray buu ilaahay yidhi dabaylaha ayaan diray, lawaaqixa, waa bacrimintii. af carabiga bacriminta maxaa la yidhahdaa? isla eragan laftiisa waa liqaax.
liqaax, waxay samaynayaan bacrimin. waa tahay waxaa laga yaabaa inaad markaasi aad istidhaahdo war waa sidee, ma qur-aanku ma sidan u hadlayaa, qur-aanku miyuuna ahayn kii uun salaada lagu tukanayay? mushkiladu markaas qur-aanka ma aha, mushkiladu waa adiga. waxaan barnaamijkan u samaynay ee uu barnaamijkan aan ugu talagalnay qofka ama wiilka dhalinyarta ah, gabadh dhalinyarta ee soomaaliyeed ee qur-aanka ka aaminsan inuu yahay wax layska barakaysto, yaraanta lasoo akhristo, markaad 12 jirka ataad iska dayso sidai dadkii walaalaha ay kaa waaweynaa u daayeen, uu noqdo markii qof xanuunsanaya in wadaad u yeedha la yidhaahdo, xaafadda haddii loo ducaynayo wadaad u yeedha la yidhaahdo. fikradda noocaas ah ee liidata ee qur-aanka liidaysa ee keliya shaqaday siinaysa ay tahay inuu intaa un ka shaqeeyo, ayaan meesha rabaa in aan ka saaro, ayaga laftoodana ku baraarujiyo kitaabkaasi gurigooda yaala inuusan ahayn uun intaa ay konseptiga ay ka qaateen iyo maaragtay scoobka ay ka qaateen iyo sawirka ay ka qaateen inuu yahay mid fahankooda ku salaysan, laakiin aan ahayn xaqiiqada dhabta ah ee kitaabka lagu qeexi karayo. inta aan ku kulmayno barnaamijkan barnaamij la mid ana, sidaas iyo nabadgelyo.